قاعدة وحافظنا جنرال شيخ يوسف إن عده جنرال محمد نور قراء يقول بس لكن كانوا حيلا ككتفا هي سياسيين كلا دول وحنا ملكيات هوتيل كاملة اللي بان معهد محمد صلاح كاسو مدوي يتنبك تجي والرئيس ميدان كي ماريا مقالة مقدشو وعيسى يعني إن حالة حكرنا يكذب تقودها مقالة عاصمتها kadib markii la weeraray hotel ay ku sugnaayeen saraakiil sarsar oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo qaybo kala duwan oo ka soo jeeda bulshada Soomaaliyeed waxaana warar ay tilmaamayaan in xaaladda wali ay tahay mid kacsan hotelka Afriik ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in lagu qaaday weerar aad u xoog badan waxaana weerarkaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la sheegay inuu waday qof naftiisa soo qiimeeyay oo hotelka gidaarkiisa ku dhuftay dabadeedna waxaa gudaha hotelka u galay rag hubeysan kuwaas oo sitadriiska ciidamada dawladda waxaana gudaha hotelka ay ku jireen dhalinyaro aad u tiro badan oo shacab ah kuwaas oo xilliga galabtii yimaada hotelka isla markaana ku gaxweeya waxaana sidoo kale gudaha hotelka lagu dilay qaybo kale oo bulshada ka tirsan kuwaas oo la tilmaamay in gudaha hotelka ay ku jireen xilliga weerarka uu dhacayay waxaana sidoo kale la tilmaamay in hotelka khasaaro badan oo ka dhalan lahaa weerarkaasi ay xakameeyeen ciidamo aad u tiro badan oo ku sugnaa hotelka kuwaasoo ilaalinayay jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad indha cadde kaasoo hogaamiyaasha mucaaradka ay u magacaabeen ama ay u doorteen inuu noqdo jenaraalka hagaya ammaankooda ama sugaya waxaana jenaraal sheekh yuusuf indha cadde dhowaan uu sheegay in mas-uul asiga uu ka yahay sugitaanka ammaanka dhammaan musharaxiinta doonaysa inay u tartanto qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayna ka difaaci doonaan al-shabaab iyo weliba dowladda Soomaaliya sida uu ku sheegay generaalka waraysi uu bixiyay dhawaantan sheekh yuusuf maxamed siyaad indha cadde ayaa la sheegay ciidan ilaalinaya si weyn ay u difaaceen hotelka ayna ka hortageen khasaare aad u tiro badan oo ka dhalan lahaa weerarkaasi waxaa la tilmaamayaa in weli qayb ka tirsan hotelka ay ku jiraan dafleedii weerarka soo qaaday hotelka Afriik ee magaalada Muqdisho waxaa milkiilayaasheeda ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaah kaasoo si weyn kaga soo horjeeda hanaan ay wax ku maamulaan madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay'adda nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xildhibaan mahad salaah wuxuu dhawaanahan soo qorayay ama ku soo qorayay barbartiisa Facebooka in ay jiraan qorshe la doonayo in lagu qaalijiyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha hawiye iyo weliba saraakiil ciidan ganacsato sida uu sheegay xildhibaan mahad maxamed salaah dhowr qoraal uu soo qoray wuxuu tilmaamay in la diyaariyay weeraro qaraxyo ah iyo kuwa toos ah oo lagu qaalijinayo siyaasiyiinta wuxuuna ugu baaqayay siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidanka ee u dhalatay magaalada caasimadda ee Muqdisho inay ka soo jignaadaan arrintaasi qaybna ay ka tahay kuwa wada falalkaasi dowladda Soomaaliya gaar ahaan taliska nisa ee madaxda uu ka yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sanadihii ugu dambeeyay waxaa isku dhaxmilmay hay'adaha ammaanka ee dowladda iyo sidoo kale dhanka dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab hay'adda nisa awoodeeda waxaa la wareegay saraakiil sare oo ka tirsan